bal Zainab marka hore waxaad inooga warantaa ama aad noogu bilowdaa waraysigeena cidda soo qaban qaabisay barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsanaa. Assalaamu calaykum. Runtii horta waa barnaamij aan qorsheynaynay muddo uguna talagalnay sidii loogu ololeyn lahaa haweenku in ay helaan boqolkiiba 30 inkastoo anagu haddii aan nahay kacdoonka sinaanta jiiska Soomaaliyeed ololaheena hore uu ku bilowday in boqolkiiba 40 laakiin maadaama hadda boqolkiiba 30 la ogolaaday waxaan samaynaynay maaragtay olole ku saabsan taas iyo in aan isu keenno hay-adaha kala duwan ama dawli ha noqdeen ama ha noqdeen hay-adaha maaragtay ururada bulshada iyo xitaa maaragtay kooxaha u ololeynayay haweenka in ay helaan qoondadooda boqolkiiba 30 oo dhan inaan isu keenno oo la helo ajanda midaysan iyo qaabkii lagu gaari lahaa iyo wixii la samayn lahaa ilaa 2020 in loo sii tabaabashaysto sababtoo ah ma aha sanadkii doorasho jirto oo kaliya in la ordo sanadkaas laakiin waa inay noqoto wax joogto ah oo runtii socda oo la wado marka waa qorshe dheer in uu ka soo baxo meeshan oo la isu yimaado oo ajanda midaysan ay ka soo baxdo shirkan marka laga soo tago in haweenku ay hami siyaasadeed leeyihiin shirkii ugu dambeeyay madashana waad la socotaayo si aad baa looga hadlay arrimaha haweenka rajo intee la eg baad ka qabtaan in sida loo heshiiyey ay wax u fulaan waxaan ka qabnaa anagu runtii rajo weyn sababtoo ah rajadu waxay tahay haddii aqalka sarena ay magacaabayaan madaxdii dawlad goboleedyada ay iyagu mas'uul ka yihiin iyagu mas'uulka ma aha ragga oo kaliya waxay madax u yihiin rag iyo haweenba marka waa inay at least iyadoo boqolkiiba 30 kaliya marka horeba la siiyey oo 70 ragga la siiyey haddana 30kii in loo quuri waayay haweenka Soomaaliyeed anu waxaan qabaa inay tahay runtii sharaf dhac ay ku tahay maaragtay ragga Soomaaliyeed guud ahaanba sababtoo bulshada inteeda badan waa haween in haweenkii iyadoo marka horeba boqolkiiba 30 loo qoondeeyay haddana 30kii maaragtay loo diido ama laga hor istaago waxaan u arkaa inay tahay runtii xaq darro teeda kale waxa weeye waan ognahay haweenka Soomaaliyeed inay yihiin haween karti badan haween dadaal badan oo Soomaaliyeed inta yar hadda maaragtay ay ku dhaqdhaqaaqayso haddaysan haweenka Soomaaliyeed ahayn runtii maxaa la yiraahdaa waan ka sii leedan lahayn oo waxa u dhabar adeego oo u dadaalo oo maaragtay u dhinto waa haweenka Soomaaliyeed marka in la yiraahdo markii ay timaado dhanka siyaasadda iyo qayb inay helaan la hor istaago taasi xaq ma aha sababtoo ah su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay shaqooyinka hoose hadda magaaladan xamar ee aan joogno laamiyadeeda dadka nadiifiyo haweenaa u badan xafiisyada dadka nadiifiyo haweenaa u badan laamiyada dadka ku gado benziinka ee maaragtay ganacsatada yaryar haweenaa u badan marka in ay qoraxda taagnaato oo shaqooyinka dhabarjabka ah qabato inay raalli ka noqdaan raggu laakiin marka ay noqoto shaqooyinka miiska la wada fariisanayo ee qofka xafiis intuu aado uu mushaar fiican qaadanayo kaasoo ay ka masruufi karaan xitaa haweenku hadday qaataan laga yaabay inay 3 qoys ay ka masruufto mushaarkaas inta markin oo ninka ragga ah laga yaabay hadduu qoyskiisa u keeno ayba nasiib leeyihiin marka waa wax muhiim ah runtii oo bulshadu ay u baahan tahay marka ma jira qorshe cad oo adinku aad bilowdeen hadda kaasoo idin fududeynaya in aad ka qayb noqotaan hanaanka siyaasadda Soomaaliya oo dawladda soo socota aad ku yeelataan kootadii leedin qoonday qorshe horta wuu jiraa waa midoo horta marka heshiis uu dhaco siyaasadeed oo waliba heer maaragtay hogaamiyayaashii qaran ay gaareen oo haddana la cadeeyay qaabka lagu gaarayo haddii la gaari waayo waxaa ka yaalo sharci iyadana oo waxaa cad oo ku cad heshiiskaas in jifadii keeni weyso gabar oo 3 maarkin oo 3dii kursiba inay mid gabar noqoto jifadii aan keeninna in la istaajiyo maaragtay xildhibaanadooda marka waa inay kala doortaan maaragtay qabaa'ilka iyo jifooyinku inay hal gabar ay kursi siiyaan iyo in maxaa la yiraahdaa ay matalaada xildhibaanimada
iyagoo ay baarlamaanka ka maqnaadaan oo taasi waa wax u baahan in la dhaqangeliyo runtii waxaan leeyahay ma ahan dhaqangelintu ma noqonayso kolleyba wax sahlan oo waan ognahay dhaqanka Soomaalida waan ognahay fakarka la qabo waan ognahay sida maaragtay rag badan ay iyagu inaysan u diidaynin nacayb haweeneed laakiin waa tartan iyagaa raba naftooda u rabaan mid waxaa laga yaabaa inuu odayguna u rabo ama wiilkiisa iyo gabadhiisa markay ay wada tartamaan inuu rabo inuu wiilku matalo oo gabadhi maaragtay aysan matal laakiin biri markuu tabar yareeyana uu gabadha soo ag fariisto marka xaq maaha taasi laftigeeda marka waxaan qabnaa anagu in la gaari doono tan haddii maaragtay sida loogu talagalay loo dhaqangeliyo hadda haweenkii waxbaa gooni looga dhigay oo waxaa la yidhi 30% ha la siiyo ololabaad wadaan oo meel walba ka socda safiirada idman ama danjirayaasha idman baa la sameeyey oo arrintan iyaga laftirkooda dhinac ka cadaadinayay haweenku iyagu ma isla socdaan mise marka ay kuraasta yimaadaan oo siyaasadda ay qayb ka noqdaan mid walba beesheedii bay ku daba safan doontaa horta taasi waxa weeye runtii waxay ku xiran tahay shakhsiga oo dabcan waxa waaye su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay raggu iyo haweenku markay laba xildhibaan yihiin oo labaduba ay wada fadhiyaan baarlamaanka maaha haweenka keligood in lagu fiiriyo ilgooniya oo la yidhaahdo iyagu ma qabiilkay la safan doonaan haddii dabcan ragguba ay la safan yihiin waxay ku xiran tahay marba siyaasadda miiska saaran iyo boolisiga ama sharciga markaas la samaynayo iyo qaabka loo samaynayo iyo qofka damiirkiisa isagu wuxuu u siiyo oo taas horta mid ma aha la dhihi karo haweenkoo dhan maaragtay kuma xirna qabiil runtii annaga Soomaali haddaan nahay maba la diidi karo hadda waxa la yidhaahdo qabiilka sababtoo ah haddiiba systemkii dhan oo qaabkii iyo habdhiskii wax lagu xulayayba uu yahay qabiilka dabcan siyaasadda kama maqna qabiilka oo waa wax jiro taasi waa wax la ogyahay laakiin waxaa la ogyahay haddana iyadoo ay saas tahay in haweenku ay ka yar yihiin markay noqoto qabiilka inaysan ugu dheganayn sida ragga in waxaa laga yaabaa gabadha maanta xildhibaanada ah caruurteedu ay qolo kala tahay hooyadeedu qolo kala tahay marka runtii waxa weeye haweenku sidii ragga maaragtay ay u yihiin qabiilistaha uma aha sababtoo iyagaaba isku xiraba Soomaali oo isu keena musuqmaasuqana aad uga yar yihiin waxaa kaloo la ogaaday oo cilmi baarisyada la sameeyey oo dunida dhan maaragtay marka la fiiriyey in ay ka shaqo badan yihiin ragga oo nacam saacadaha ay shaqeeyaan raggu geliyaan ka badan inay haweenku geliyaan tan labaad waxaa kaloo iyadana cad in sharciyada ay haweenku baarlamaanka joogo ay maaragtay paasgareeyaan ama ay ka shaqeeyaan in ay yihiin sharciyo dan u ah qoyska iyo reerka iyo waddanka guud ahaanba oo in ay dhanka wadaniyadda iyo u gargaarka bulshadaba in ay kaga fiican yihiin ragga marka runtii Soomaaliya haddii la rabo Soomaaliya in ay hore u socoto dabcan haddii in ka badan 50% ay ka maqan tahay oo fakarkoodii ka maqan yahay oo xooggoodii ka maqan yahay oo caqligoodii ka maqan yahay Soomaaliya waxaan qabaa inaysan meel la gaari karin si kooban marka 4.5 iyo in qabiil wax lagu qaybsado waxaa la yiri waa laga bixi doonaa oo waxa ugu dambaysa xilligan hadda dawladda iman doonta kadib axzaab baa loo gudbi doonaa Soomaalidana waad garanaysaayo haddii nin iyo haweeney ay soo barbar istaagaan waxay u badan tahay in ay ninka doortaan waxyaabihii maanta laga hadlay waxaa ka mid ahaa in haweenku ay qayb ka noqdaan axzaabta siyaasadda arrintaas wax ma idinkaga qorshaysan yihiin oo wax ma ka sii bilowdeen in aad samaysataan axzaab haweenka ay hogaaminayaan amaba aad ka mid noqotaan axzaabta dhismaya qorshahaas horta wuu jiraa annaga haddii aan nahay maaragtay kacdoonka silaanta jinsiga Soomaaliyeed annagu waxay tahay ujeeddadeenna dhanba in haweenku ay helaan xuquuqda ay leeyihiin dhanka siyaasadda iyo dhanka bulshadaba taas marka waxay ku iman kartaa in la helo marka hore dabcan haween isku toosan leh maaragtay kartidii dhaqaalihii wax walba inay dhinac walba ka dhismaan haweenku 2020 annaga waxa hadda aan qorsheynayno waxay tahay waxa hadda shirkan ugu muhiimsan
oo aan u qabannay oo dhowr hay-adood aan maaragtay runtii iskula shaqaynayno oo wada shaqayn aan ka bilownay halkan waxay tahay wax kale ma aha nacam shirkan aan wada qabannay laakiin aniga qorshaheenu wuxuu yahay in la sameeyo horta wacyigelin tiro badan laga bilaabo hadda ilaa iyo 2020 inta laga gaaray inay si joogto ah wacyigelintu u socoto labo in gabdhaha soo galo hadda 2016 baarlamaanka in iyaga laftigooda ay noqdaan kuwo wax ka bedelo siyaasadda marka aan leeyahay wax ka bedelo siyaasaddana waxaan ka wadaa inay noqdaan haween wax ka duwan ama si ka duwan siyaasaddii hore wax u sameeya ha noqoto inay iyagu isku xirmaan ha noqoto inay ku xirmaan ururada bulshada in ay xataa maaragtay meelihii ay ka yimaadeen inay geeyaan maaragtay adeegyo in ay dadkii maaragtay wax u qabtaan si ay hadhow loo soo dooran karo oo ay jidkaas in ay falaan ugu dambayntii dadka dhaliila in haweenku ay dibadda u soo baxaan oo ay siyaasadda ka qayb qaataan waxyaabaha ay ku doodaan waxaa ka mid a in shaqada ugu habboon oo haweenaydu ay qabato ay tahay in ay gurigeeda joogto oo ay soo saarto ubad tarbiyaysan oo akhlaaq leh dhismaha bulshadana ka qayb qaata haddii haweenaydii ay guriga dibadda uga soo baxdo waxaa dhici karta baa laleeyahay in ubadkii ay dayacmaan hadda dadka dhibaatada wada mushkiladda ku ah qarannimada Soomaaliya haddii ay tarbiyo wanaagsan heli lahaayeen arrintan ma imaadeen adinkan hadda waxaad doonaysaan inaad dibadda u soo baxdaan oo aad siyaasaddii ka qayb qaadataan arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa runtii horta arrintaas waxaa jawaabteedu waa sahlan tahay waxay u sahlan tahay waxay tahay waxa shaqeeya mujtamaca waxa u badan haween gaar ahaan haweenka carruurta koriyo waxay ka shaqeeyaan sida hadaayba aan u sheegay ama biibito jidka shaaha ku kariso ama gaas benziin ha gado ama qaad ha gado ama wax shaqooyin ay qabtaan haddaba marka haddiiba oolba aysan gurigiiba jooginba waxaa loo qaatay shaqo inay helaan fiican oo reerkeeda iyo dhowr dhabarjabkii iyadina maaragtay dhabarjabkeedii uusan ku dhacaynin oo aysan rafaadaynin haddana xitaa saacadaha ay shaqaynaysana ay ka yar yihiin hadda saacadaha ay shaqayso labo in ay hesho dhaqaale liist ka fiican oo ka nadiifsan kii hore oo nacam iyada iyo qoyskeeda iyo xitaa waxaa laga yaabaa inay dhowr qoys kuwa walaalaheed iyo ay iskuulle ilmihii u geyso oo bulshada ay wax ka bedasho sababtoo waxaa la ogaaday dhaqaalaha ay haweenku haystaan waxay haweenku iyagu aysan sidii ragga aysan taajir ugu noqonin in ay geliyaan investment badan inay geliyaan qoyska not only qoyskeeda laakiin waalidkii walaalihii qof walba inay geliyaan marka taasay ay wax ka bedeli lahayd aad baad u mahadsantahay aad iyo aad